Dad badan ayaa waxay la dhibaatoonayaan cudurrada dhanka indhaha ah, nidaamka cunnadooda oo khaldan awgeed arrintaas oo marka ay sii korortana gaarta in araggu uu daciifo, waa sida ku dhacda inta badan carruurta. Dr. Shariif Jamaal oo ah dhakhtar cudurrada indhaha ku takhasusay oo la hadlay jariidada Youm Safan ee dalka Masar ka soo baxda ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin talooyin qofka si gaar ah looga siin karo waxyaabaha aragga daciifiya, isla markaana aanay cilmi ahayn, sidaa darteedna ay waajib tahay in caafimaadka indhaha guud ahaan la dhowro, talooyinkana la raaco. 1. In la raaco nidaam cunno caafimaad oo wanaagsan oo ay ku jiraan fitamiin A, B iyo omega-3. 2. In lagu dadaalo cunista khudaarta midabeysan sida kaarootada iyo yaanyada ama tamaandhada qof weliba sida uu u yaqaano. 3. In saacado nidaamsan la seexdo si aanay indhahu u daalin. Waxa uu caddeeyey dhakhtarku in qalabka elektarooniga ah aanu aragga waxba ka daciifin sida dadka qaar ay aaminsan yihiin. In qofku uu daal dareemaa waxay ka dhalinaysaa wakhtiga dheer ee uu qalabka hor fadhiyo, waa inaa yaraysaa wakhtiga badan ee aad isticmaalaysid qalabka elektarooniga ah. Si aad u heshid casharo badan oo ku saabsan caafimaadka nolosha iyo saykoolojiga, fadlan follow iyo subscribe hanaga ilaawin. Mahadsanid.